Magaalada madaxda labaad ee Somaliland ee Burco waxaa saaka soo gaaray wafdiga hoggaanka ugu sarreeya xisbiga rajada shacabka ee wadani oo gobolada dalka ku marayay safarka walaaleeye. Magaalada Burco saaka way ka duwaneed gobolada kale musharaxa iyo wafdigiisu ay cagta soo dhigeen, waxayna ahayd magaalo u diyaarsan isbeddel ay hoggaan u tahay dalkana lagaga badbaadinayo xukuumadda kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweyne Biixi, taasi oo shacbigu walaac xooggan ay ka qabaan hogaamintooda. Shawiga goobta soo dhaweyntu ka dhacaysay ayaa markii ay soo gaareen wafdiga murashaxa madaxweyne ee xisbiga wadani iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan oo ay ku sugnaayeen kumanaan shacbi isbedel doon ah ayaa sidan isku bedeshay. badal loo gegimay soo dhaweynta wafdiga murashaxa xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga wadani ee calanka u siday isbedel doonka dalka waxaa hadallo kala duwan ka jeediyay madax dhaqameed, siyaasiyiin, mas'uuliyiinta xisbiga ee gobolka, haween iyo taageerayaasha isbedel doonka ah, waxayna dhammaantoodba si isku mid ah u tilmaameen in dalka laga badbaadiyo xukuumadda kulmiye ee talada dalka iyo dadkaba la abatay. musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga Xirsi Cali Xaaji Xasan ayaa dhankooda la hadlay shacbiga tirada badan ee soo dhaweeyay. burco aad iyo aad bay u mahadsantahay. burco waxaa ka muuqata midnimo shacbiga Somaliland jiddahayaga koowaad waxa weeye inaanu midayno. Somalilandna waanu walaalaynaynaa, burcana waanu walaalaynaynaa haddii alla yidhaahdo. walaalayaal, dadku nolol bay u baahan yihiin, waxbarashay u baahan yihiin, caafimaad bay u baahan yihiin, horumar bay u baahan yihiin. barnaamijka xisbiga waxaa ku jira inaynu dhisanno ciidan qaran oo adag oo cadow kasta ka baqdo haddii alla yidhaahdo. ciidankeenna udub baynu dhisanaynaa, qarankeenna waynu adkaysanaynaa, difaaciisana waynu adkaysanaynaa. maanta weli wahowtiina ololiima u bilaabmin, laakiin waxaannu idinku nimi inaannu idiin sheegno inaynu doorashadii u diyaargarowno. laakiin sida idinka muuqata waa naga horraysaan. dubuxorayntii Somaliland 27 May burca la soo galay. ku dhawaaqistii Somaliland waxa lagaga dhawaaqay burco. isbeddelkiina burca maanta ku dhawaaqday. soo isbeddelkii kumaydaan dhawaaqeen, soo hogaamin maysaan, soo kulmiye beddeluu maaha, soo beddeluu maaha, soo beddeluu maaha, soo beddeluu maaha. waana 13 November. dadka reer burco waa la idinku yaqaanay dadaalkan oo kale, waa lagu yaqaanay burco xamaasadda, waa lagu yaqaanay burco inay tahay magaaladii haleeyada soo saari jirtay, magaaladii hoggaamiyaasha soo saari jirtay, magaaladii guusha, magaaladii isbeddelka. waxaan u soconnaa burco inay isbeddelka hoggaamiso. burco waa ismuujiseen, waxaynu doonaynaa inaynu xaqiijinno isbeddelka, inaynu xaqiijinno isbeddelkaynu doonaynaa. waa mid ay idinku aydaan, waa mid dalkeennu u aayo, waa mid dadkeenna u aayo, waa mid dhibaatada maanta jirta inaga furdaamiya. soo dhaweynta murashaxa xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro iyo gudoomiyaha xisbiga ee gobolka Togdheer saaka loogu sameeyay ayaa ahayd mid aan loo kala harin shacabka gobolka Togdheer, waayeel, waxgarad, haween, dhalinyaro iyo guud ahaan shacabka magaalada Burco. Cabdilaahi Maxamuud Muuse Xudayfi, wararka telefishinka Ariel.